الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى ولا ليال إلهي بمهد سبحانه وتعالى حديث خطبتنا وحين يسد التاغيني هل حديث وكمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقو براروجيني موضوع آد مهمة ولو باهن يهي قفك مسلم كي إنه مركزتا وكبراروجسنادو موضوع سؤال waxyaalada qofka meeyidka adduunyadan ka raacaya ee aakhiradiisa la tagaya nolosha aan dhamaanahayn ee loo wada socdo ee aan markaa waxa weeyaan dadku laba mid ay yihiin qof liibaanay iyo qof khasaaray ayuu xadiidkani ka waramaya nabigeenu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam qofku marka uu dhinto saddex baa raaca laba ka soo noqda midna baaqi buu la ahaaday oo uu la joogaa waxa ka soo noqda qofka waxa raaca maalkiisa yeelkiisa iyo amalkiisa saddexda baa raaca eelkiisa iyo maalkiisa way ka soo noqonayaan amalkiisuna wuu la joogayaa wuu la godgelayaa sidaa daraadeed qofka bani aadamkii adduunyada korkeeda keligii noolaade ma ahaado wuxuu u baahan yahay ehel iyo dad uu heshado markii horena ilaahay ka beeray iyo kuwo kale oo waxa weeyaan nolosha ku soo biira oo isweheshadaan waxa aad muhiim ah inta uu ku dadaali karo dadka eelkiisa inuu kula dadaalo dad saalixiin inay noqdaan hadday tahay xaaska uu dooranayo hadday tahay ubadka ilaahay ka beeray hadday tahay inta kale ku xeeran inuu salaaxooda iyo wanaagooda uu ka shaqeeyo oo inta dadaal uu ku bixi karayo uu ku bixiyo si aakhiradiisana u anfacaan sidoo kale maalkiisana inuu ka dhigo mid uu kaashado aakhiradiisa oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa iskaga dhigo ittaqul naara walow bishiqi tamra jeex timireedna ahaadee naarta wax iskaga dhiga buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam inaanu noqon maalku mid ka mashquuliya hadafkiisii weynaa iyo halkii lama huraankii u socday ee aakhiro ahayd inuu noqdo inaanu noqon baa loo baahan yahay inuu noqdo mid uu kaashado aakhiro wixii anfici lahaa ayaa loo baahan yahay walaalayaal ilaahay wuxuu ka warramay dad markaa waxa weeyaan reer miya oo waxa weeyaan ka cabanaya nabiga sala allahu calayhi wasalam oo la shaqalatna amwaaluna wa ahluna fastakfir lana waxa khayrkii iyo cibaadadii iyo daacadii naga mashquuliyey xoolaha iyagii iyo ubadkayagii ee ilaahay dembi dhaafna weydii maanta waaqiceenna haddaad eegto in badan oo bulshada ka mid ah waxaa lagu mashquulsan yahay waa xagga adduunyada ninba ninka adduunyadiisu ka sii korodhana raaxaduna way ku yaraataa mashquulkuna wuu ku bataa waxa weeyaan hataa dadkii ehelkiisii baanay ishelahayn waxaa loo baahan yahay adduunyada inay noqoto mid aakhiradeena aynu u kaalmaysano ilaahay si guud buu inoola hadlayay dadka mu'miniinta yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii iimaanka laga helayow laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum
yaana idin mashquulinin xoolihiinna iyo ubadkiina oo laydinka mashquulin ilaahay xuskiisa. ilaahay baa garanaya waxa inoo wanaagsan, waxa dhibta inagu hayana ilaahay baa inooga og. sidaa daraaddeed ayuu rabbi subxaanahu inoo sheegayaa inaanay labadaas ina mashquulin. waxaanu rabbi ku tilmaamay cidda ay mashquuliyaan inay yihiin cid khasaartay. ilaahay khasaaraha inaga ilaaliyo. nabigeena calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil baa u yimid oo amiinulwaxyi ahaa oo qur-aanka soo gaadhsiin jiray. wuxuu ku yidhi malaku jibriil isagoo u sheegaya arrin nebigana calayhi salaatu wasalaam loo sheegayo innagana inagu socota. wuxuu ku yidhi muxamedow, nebigeennu u jeeda calayhi salaatu wasalaam, noolow intii aad doonto fa innaka mayit, cish maa shi'ta fa innaka mayit. inta doonto noolow. qofku waxa weeyaan hadduu 30 gaadho, hadduu 40 gaadho, hadduu 50 gaadho, hadduu 100 gaadho, laabudda waxaa sugaysa geeri. inta doonto noolow waad dhiman doontaa. cidda doonto jeclow waad ka tegi doontaa buu yidhi. waxbib man shi'ta fa innaka mufaariqu. cidda doonto jeclow, ubadkaaga jeclow, waalidkaa jeclow, xaaskaaga jeclow, saaxiibkaa jeclow. wakhti aan lagaala tashan ayaad ka dhaqaaqaysaa oo laleeyahy way dhammaatay, wakhtigii baa kaa dhammaaday, waad ka dhaqaaqaysaa. cidda doonto jeclow waad ka tegaysaa. wacmal maa shi'ta fa innaka mujziyun bih. waxaad doonto samee. nooc digniin iyo cagajuglayn baa ku jirta. waxaad doonto samee, waa lagaa abaalmarinayaa. wanaag haddaad samaysana waa lagaa abaalmarinayaa. xumaan haddaad galabsatana waa lagaa abaalmarinayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka qarsoomaya ma jiraan. adduunyadan yacni waxa weeyaan qofku wixii uu sameeyey way u kaydsan yihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igna way qoraysaa. wuxuu yidhi markuu dambayn malaku jibriil, yaa muxamed, waxaad ogaataa sharafta qofka muuminkaa ilaahay rumaysan waxa weeyaan qiyaamu leyl, habeenkii inuu salaad tukado, ilaahay daraaddii u tukado. maaha salaaddii faralka ahayd ee dad in badani ay ka mashquuleen ama ka seexanayeene, waa salaad sunno ah. qofka sharaftiisa ku jirta. haddii waxyaalo kale sharaf lagu sheego, waxa weeye sharafta qofka muuminka ah taabuu ku sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam. qofka cizadiisuna waxa ay tahay, cizadiisa iyo makaanadiisa waxay ku sugan tahay istighnaa'uhu camaa fii aydi nnaas, inuu ka maarmo dadka waxa gacantooda ku jira, inaanu aqal taagin dadka kale waxa ay haystaan. haddaad ka maarmi karto weligaa inaanad qof wax weydiisan, isku day. ninbuu nebigu kula dardaarmay saxaabada ka mida inaanu cid wax weydiisan. waxaa la yidhi ninkaa haddii isagoo faraskiisa saaran uu shaabuuggu ka dhaco, wuu ka daadegi jirayoo wuu soo qaadan jiray. maanta magacyaal fara badan ayaa loola baxay dadka gacmahooda waxa ku jira. mid yidhaahdo waan shaxaadayaa, mid yidhaahdo waan la qayilayaa, mid la yidhahdo bal hebel baan soo salaamayaa. intaasoo weji ayaa loo samaysanayaa. qof weyn oo sharaf leh ayaa laga yaabaa inay noloshiisaba ka dhigto inuu noqdo shaxaad ku nool. haddaad maaragtay mid madaxa
iyo mid markaa maalqabeena iyo mid wax yar ku dhaama mid walba aad istiraado waxa weeyaan xirfad iyo qaab wax ku weydiiso ayaan darro aad iyo aad u weyn weeyaan inaad dhagax caloosha iskaga xidho ayaa kaaga roon inaad isku dulayso qof ood wax weydiiso haddaad cid wax weydiisanaysana ilaahay weydiiso waidaa sa'alta fas'al illaah qofka bini aadamka adduunyadan waa uu ka tegayaa sidaaynu sheegnay ee nebigeennu inoo caddeeyey dadka ehelkiisana waxaa ka raacaya ee ka daba iman kara waa duco ay u soo duceeyaan iyo ilaahay oo dembi dhaaf u soo weydiiyaan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sheegay yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalinta aakhiro maal iyo ubatoona waxba tari maayaan nebigeenna calayhi salaatu wasalaamna wuxuu inoo sheegay qofku haddii uu adduunyada ka tago in aanay markaa camalkiisi uu go-ayo 3 mooyaane 3daasi maxay yihiin sadaqa jaariya sadaqad u soconaysa oo waqfi ah oo khayriya oo qofka adduunyadan uu kaga tegey way u soconaysaa isagoo godka ku jiray halkaa ugu imanaysaa masaajid aad dhistay madrasad aad dhistay ceel aad qoday agoon aad quudisay yacni waddo aad hagaajisay wax kasta oo ummadda wax u taraaya oo hadhaya waxa weeye aakhiro bay kaaga daba imanayaan ta labaad waladun saalixun yadcuu lah ilmo wanaagsan oo kuu soo duceeya oo waxa weeye ku xusuusta oo ilaahay oo waalidka u naxariiso ku yidhaahda iyo ta saddexaad oo ah cilmun yuntafacu bih cilmi qofka waxa weeyaan lagu intifaacsado oo uu ka tago hadduu isagu dad baray iyo hadduu waxa weeyaan sabab u ahaa inay barteen wax anfacaya weeyaan cilmigu waa guda ballaadhan yahay macaani badana wuu yeelan karaa walaalayaal sidaa markay tahay waxaynu u baahannahay inaynu ku dadaalo sidaynu raad wanaagsan adduunyada uga tegi lahayd waxaa dhici karta mararka qaarkood kii aad dhashay amba kula dhashay ee dhaxalkaaga lahaa inuu kaaga anfac bato inay kaaga anfac bataan mid aydan waxbaba isku ahayn abtirsiimada min culimadii muslimiinta ka mid ah wuxuu lahaa yacni waxa weeyaan qof ajnabiya oo laakiin wanaagsan adduunyada isku barateen khayrka ku saaxiibteen ayaa laga yaabaa inuu kaaga nafci bato mid yacni dhaxalkaagii qaybsanaya oo qaar baa laga yaabaa buu inay ku mashquulaan dhaxalkaagii siday u qaybsan lahaayeen oo haddii la yidhaahdo waa ninkii dhintay iyo waxa weeye xaajiyadii dhimatay waxaa looga tago hooyadiin intaa u sadaqaysta hooyadiin iyo aabii waxaa waqfigaa u sameeya qaar baa laga sheegay waxba ka raaci maayaan wuu haysta xoolihiisa markii uu noolaa hadduu wax kala baxaayo tani maanta annagay nagu soo wareegtay laakiin laga yaabo mid wanaagsan oo khayr isku barateen inuu kuu murugoodo kuu soo duceeyo ku xusuusto walaaltinimada iyo ehelnimada dhabtiina taa weeyaan maalkii walaalayaal sidaas oo kale nebigeenna sala allahu calayhi wasalam maalin ayaa waxa weeyaan saxaabada mid ka mid ah u soo galay isagoo akhriyaya suuradda alhaakum takaathur waxaa idin mashquuliyey yacni waxa weeye xoolobadsigiinnii iyo maaragtay waxa weeye iskuufaanka ayaa idin mashquuliye xoolaha kadibna waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamkii wuxuu leeyahay marka uu nool yahay maalkaygii maalqabeen baan ahay intaasoo milyaar baan haystaa intaasoo hanti aan haystaa intaasoo xoolaabaa ii dareerta intaabaa ii joogta yacni waxa weeye adduunyada korkeedu leeyahay maalkaygii wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wahal laka min maalika ya bna aadam ibni aadamow maalkaaga miyaad ku leedahay ilaa 3 wax ka mida mooyaane maa akalta fa afnayta waxaad cuntay oo dhammaysay waxaad doontaa haddaad ka cunto waxaad cuntaa wuu yarya kaasi waxa weeye maalkaagii wuu tegey khalaas suurigu tegey wuu ku dhaafay wamaa labista fa ablayt waxaad gashatay
dharka nooca adduunka ugu qaalisan meel kasta haddii lagaaga keeno wuu baaliyoobayaan labadaa iyo ka saddexaad waa maxay iyo maa tasaddaqta fa amdayta waxaad sadaqadaysatay ood la baxday oo waxa weeyaan kuu sii horeeya oo kuu sii jooga kan raasamaalka dhabtiina waa kaa ka horeeya ma aha inta adduunyada aad kaga tagtay geeridu kaa soo gaadhay maalkaaga dhabtii waxa weeye waa wixii aad sii hormarsatay maalin baa nebigu sala allahu calayhi wasalam xaaskiisii caaisha ayuu guriga ugu yimi isagoo ogaa neef ay qasheen oo guriga u yaalay suu yidhi maaragtay waxa weeyaan maxaad ka haysaa neefkii aynu qalannay say tidhi dhammaantii dad baynu siinay ilaa intaa yar mooyaane suu yidhi dhammaantii waynu leenahay intaa mooyaane yacni intaynu rasmiga u leenahay waa maxay waa intaynu dadka siinay inta aynaan lahayna waa inta aynu cunayno weeyaan walaalayaal maalkaas waxa weeyaan waa wax loo baahan yahay oo adduunyada qofku aakhiradiisa u kaalmaysanaya markuu ilaahay dikrigiisa aanu ka xusuusan ka mashquulin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kiineeba maalkiisu ka jecel maalka ka dhaxlaaya waxay yidhahdeen saxaabada rasuulka ku yidhaahdeen dhammaantayo maalka iyagaan wada jecel lahay haddaba wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa ina maaluhu maa qadam maalkiisa dhabtii qofka waa wixii hore u marsaday maalka qofka dhaxalkiisa lihina waa wixii uu ka tegey markaa xoolo aanad lahayn ayaa laga yaabaa inaad jeceshahay kuwii aad lahaan lahaydna aanad jeclayn walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala adduunyadan waxa uu ka dhigay daar laysku imtixaamayo ilaahayna ugu talagalay waxa aynu jecelle nafteennu ku dhegan tahay inaynu wejiyada khayrka iyo waxa weeye waxa ummadda waxtarka u ah iyo marka dhibaatooyinka baahi u jiraan lagu bixiyo ilaahay baa yidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun khayrka iyo samafalka gaadhi maysaan ilaa aad bixisaan waxa aad jeceshihiin cabdillaahi bin cumar bin khadaab ayaa waxaa la yidhi wax kastoo naftiisa uu arkay inay aada u jeceshahay oy xiisaynayso xoolihiisa ka mid ah wuu bixin jiray baa la yidhi isagoo aayaddaa ku dhaqmaaya maalin maalmaha ka mid ah ayaa hal geeriisi ka mida buu fuushanaa oo rakuubuu ka dhigtay hashiibaa sida maaragtay quruxdeeda iyo siday u soconaysaa cajab gelisay intuu ka degay isla markiiba ayuu calaamad ku sameeyey yacni waxa weeyaan in xaramka lagu qalayo oo ilaahay daraaddii ula baxaayo ayuu ku sameeyey sidaa bay ahayd dadkii ahlu khayrka ahaa oy ugu bereetamayeen daarta aakhirada ilaahay waxaynu weydiisanaynaa subxaanahu watacaala kuwii khayrka waxa weye aakhiradooda khayr usii hormarsada inuu inaga dhigo wejiyada albaabada khayrkana ilaahayna waafajiyo man camila saalixan falinafsi waman asaaa facalayha wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ثم صلوا من أمرت بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة